waa in salaam asxaabteyda caawa waxaa ka hadlaynay is-ogaanshuhu muxuu yahay ama marka afka qalaad ku sheegno ama luqadda ingiriiska self awareness maxaa la dhahaa maxaase ka taqaanaa okay is-ogaanshuhu waa awoodda is-ogaanshuhu waa awoodda aad ku fahmi karto fikirkaaga dareenkaaga iyo dabeecadahaada iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karaan adiga shaqsiyan iyo dadka kale. Waa sidii adiga oo isdaawanayo muraayad isku daawanayo maskaxdaada iyo gudahaada waxa ka dhex socdo oo ka dhex jiro adigoo muraayad ku daawanaya camal waay. Is-ogaanshaha sidaasaa laga wadaa. Waa awoodda aad ku fahmi karto dareenkaaga, fikirkaaga iyo dabeecadahaada. Awoodda aad ku fahmi karto ayaa la is-ogaanshaha iyo saameynta ay ku yeelan karaan naftaada iyo dadka kale oo adiga kuu dhow ama dadka kale oo wax kala dhexeeyaan sidii u saameyn karta. Waa sidii muraayad adoo isku eegayo gudahaada waxa ka dhex socda aragtid waa inaad iska warhayso istaqaanayo si fiican isku garanaysaa. Waan gartay haddaba markii aad is ogaatid oo isbaratid oo istaqaanid oo wax walba adiga kugu saabsan aad ogtahay maxay ka caawin kartaa. Waaba is ogahaybo aniga waxaan ahay deeqo magacayga waa ogaa qabiilkayga waa ogaa meeshan ka soo jeedo waxaan ahay waa ogaa wax badan oo aniga u saabsan waanba ogaadaba horeyna qaar baa ogaa qaar kalena waa barta waa ogaa maxay iga caawin kartaa marka how is it going to help me fine okay marka kadib markaad is ogaatid oo adiga aad awoodahaada garatid waxaa ku sahlanaanayso in aad samaysatid ama qaadatid go'aano fiican sababtoo ah waxaad ogaatay ama fahamtay dareenkaaga fikirkaaga saa u fikiraysid waxaa markaan awood u leedahay in aad dooratid wixii saxda ah wadan kugu jirto isla markaasna aad samaysid ama qaadatid go'aan sax ah sidoo kale markaad is ogaatid waxaa ku sahlanaanayo in aad awood u yeelatid inaad xakameysid dareemahaada markaad carootid oo kale inaadan waalanin oo dharka toorin oo dhin waad caroodayo haliga raali noqde laakiin aad awood u leedahay inaad xakameysid oo ka hortag leedahay waxyaabaha kaa careysin kara aad ka fogaatid kadib markaa carootid saa isku dejin lahayd wixii ku dejin karo waxaasoo dhan inaad taqaanid oo baratid sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad ogaatid in aad xiriirka dadka kala dhexeeyo aad hagaajisid sida xaduud inaad adiga leedahay aad ka hortagtid wax walba oo xaduudaada in laga soo gudbo ama loo soo gudbo dhici kara isla markaasna adigana aadan dadka kale xaduudahooda aadan ka gudbin ama aadan khalad kaa dhicin waa is ilaalinaysaa adiga inaad khalad samaysid oo dadka kale khalad aad ku samaysid ka gashid adigana khalad lagugu sameeyo waxaasoo dhan baad fahmaysaa isla markaasna waxaa ka fogaanaysaa muran iyo isqabqabsi iyo khilaaf kadib markii aad is ogaatid ayaa arrintaas dhacaysaa wayna kaa caawinaysaa in aad awood u yeelatid xiriirka dadka kale kala dhexe inaad hagaajisid waa garta sidoo kale waxay kaa caawinaysaa is-ogaanshuhu in naftaada aad ku kalsoonaatid ama kalsoonida naftaada ee heer sare noqoto kadib markaad ogaatay awoodahaada meelaha isheeg aad daciifka ka tahay iyo waxyaabaha kaa maqan waxaad sameynaysaa habkii aad u horumarin lahayd naftaada iyo waxyaabaha kaa dhiman ama nusqaanta ka ah kadibna waxaa ku tallaabsanaysaa horumar okay sidoo kale waxay kaa caawini kartaa is-ogaanshuhu in aad mas-uuliyadda ama waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad mas-uuliyadda adiga qaadato tusaale ahaan oo kale waxaa dhacay khalad ama waxbaa qaldamay sidii la rabo u dhicin bedelkii aad dadka kale eedeyn lahayd ama aad canaanan lahayd
waxaad baranaysaa in aad naftaada canaanato, mas-uuliyadda qaadato, ka cudur daarto khaladkii kaa dhacay, calashan aadan noqon qof isla quman, aad noqotaa qof iska warhayo dee xilliguu khaldamo og, xilligii lagu khaldamana garanayo. So therefore marka sabab markaad u noqoto adiga ama khalad kaa dhaco, khaladkaas isaga dad kale korka ma saaraysid oo ma eedeynaysid, bal naftaada eedeynaysaa oo cudurdaar ayaana ka bixinaysaa iyo raaligelin. So marka intaas iyo kuwo kaloo fara badan waxay kaa caawinayso in aad marka ugu horeyso oo naftaada aad garanaysid. Warhoy naftaada ma taqaanaa? Wiilow, gabarey, ma istaqaanaa miska warhaysaa? Ma ahan dee aqoonta generaalka ama guud ma ahan oo magacaada iyo meesha ka jeedid iyo da'daada iyo inaad dumar tahay, inaad rag tahay iyo waxaad jeceshay, waxaad necebtay, waxaas ma wax badan ma isdaawataa. Maskaxdaada waxa ku jiro ma ka warhaysaa oo ma aragtaa sidii muraayadii ma gudahaada ma daawataayo ma aragtaa? Miska warhaysaa hadalka afkaan ka soo baxayo, ficilka aad sameynaysid ma iska warhaysaa? Bas waxaa tahay qof aan iska warhayninba. yaa qof hadla wuxuu sheegayana ka warhaynin, qof wax sameeyo wuxuu sameynayana ka warhaynin miyaa tahay? Mise qof iska warhayaa tahay? Bal dib ha la isugu noqdo. qof walbo bal dib isugu noqo.